24 bishan July magaalada Garowe waxaa ka furmaya bandhiga buugta caalamiga ee Garowe Book Fair waxaana uu soconayaa sanadkii afraad oo xiriira. Soomaaliya oo ah dal hodan ku ah afka hidaha iyo dhaqanka ayaa bandhigyadan oo kale waxaa loogu talagalay inay dusha sare soo mariyaan maaxda iyo miida garaadka iyo garashada qofka Soomaaliyeed ee duntiisu fiican tahay. Sidoo kale waa madal ay dhalinyarada hal abuurka leh ee alla hibada u siiyay inay maskaxda tuujiyaan ayna ku soo bandhigi karaan kartidooda curin. Haddaba intaynan u gelin arrimaha bandhigyadan waxaan marka hore ku hormaraynaa inaan wax yar ka iftiimino waxa uu yahay bandhig buugaaged. Bandhigyada caalamiga waxa ka soo xirado dakhli dhaqaale oo aad muhiim ugu ah dawladda iyo magaalada martigelinaysa labadaba. Si loogu guuleysto bandhig kasta waxa muhiim u ah inuu helo xayeysiis tiro badan, xiriir dadweynaha lala yeesho oo aad u sareeya, maamul waayo araga oo garanaya shaqada uu hayo, in dadka ka soo qaybgalayaashu ay helaan soo dhaweyn fiican iyo caawin, xulasho fiican oo laga sameeyo dadka lagu casumayo, kuwaas oo leh magac iyo maamuus ku leh dunida, lehna waayo aragnimo kala duwan. Waana qaybaha ugu muhiimsan ee qurxiyo bandhigyada. Inta badan bandhigyada noocan oo kale loo sameeyo waa ay guuleystaan gebi ahaan. Tusaale haddaan soo qaadano dawladda Jarmalka waxaa loo aqoonsan yahay inay ka mid tahay dawladaha ugu horeeya bandhigyada xiisaha leh ee soo jiita dadyow badan, uguna badan bandhigyada caalamiga ee buugaagta iyo ganacsiga. Magaalooyinka dalkaasi waxa ay ku tartamaan bandhigyada iyagoo sameynaya fududeyn fara badan. Qof kasta oo soo booqda iyo qof kasta oo bandhiga ka soo qayb gala iyo kan soo bandhigaha labadaba. Inaad bandhig carweed booqataa waxa ay faa'iido u tahay qof kasta. Haddii aad tahay qof maalgashi doonaya waa aad ka faa'iideysan kartaa. Haddii aad tahay qof ganacsade ah waa aad ka faa'iideysan kartaa. Haddii aad tahay qof cilmi baare ahna waa aad ka faa'iideysan kartaa. Natiijadu waa faa'iido dadkoo dhan soo wada gaaraysa. Shirkadaha ama hay'adaha inta badan qabanqaabiya bandhigyada caalamiga waxa ay sameeyaan diyaargarow fara badan si loogu guuleysto bandhiga. Bandhig buugeedku waa hab fududeynaya kulan aad la yeelanayso bandhiga kala duwan oo ay soo bandhigayaan shirkado kala duwan. Caadi ahaanna aan looga baran inay hal meel ka wada shaqeeyaan. Waana wax kuu fududeynaya inaad meel kaliya ka wada hesho wax badan oo aad u baahnayd oo buugaag ah adigoo weliba ku helaya waxaad doonayso qiimo jaban. Bandhigyadan ayaan dhinaca qoraalka kaliya aan ku koobnayn oo dhinacyo badan leh. Haddaba waxaan isbarbardhig ku samaynaynaa bandhigyada buugaagta ee Garowe iyo Hargeysa. Bandhiga buugaagta caalamiga ee Hargeysa, xarunta dhaqanka ee Hargeysa ayaa sanadkiiba hal mar qabata bandhiga buugaagta caalamiga ee Hargeysa, waxaana soo qabanqaabiya ururo dhowr ah. Bandhigan waxa sees u ah wax kasta oo horumarinaya taabagelinta dhigista, fidinta hidaha iyo suugaanta, xoojinta fanka iyo farshaxanka, baahinta dhaqanka qorista iyo akhriska, iyo gaar ahaan kobcinta qoraalka afka Soomaaliga iyo dhiirigelinta waxyaabaha suugaanta Soomaaliyeed khuseeyo oo dhan, maqaallo, taariikhda, sheekooyin, sayniska, gabayo iyo jilidda oo tayo sare leh, iyo in la siiyo dadka dhalinyarada ah inay helaan dhaqamada dunida iyagoo loo sahlayo inay helaan tarjumida suugaanta heerka caalami ee caanka ah oo ay ku jiraan sheekooyin, gabayo iyo jilid intaba. Bandhiga buugaagta caalamiga ee Hargeysa waxa uu maalgelin ka helaa Midowga Yurub iyo hay'ado kale oo caalami ah. Sanadihii la soo dhaafay iyo waxqabadka buugaagta Hargeysa 3 sano ee la soo dhaafay si weyn ayuu u soo caanbaxay bandhiga buugaagta caalamiga ee Hargeysa, isaga oo soo jiitay dareenka saxaafadda iyo adduunka iyo weliba dadka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaanba. Sanad kasta waxa uu bandhigu leeyahay mowduuc gaar ah oo lagu faaqido. Tusaale ahaan sanadii 2015 waxa halku dhigiisu ahaa waa maxay baradaydu, oo loola jeeday xayndaabka qofku uu ku muujin karo fikirkiisa kuna tuujin karo maskaxdiisa isagoo aan ka cabsi qabin in fikirkiisa wax lagu yeelo. Waxyaabaha aadka kor ugu qaaday bandhiga buugaagta caalamiga ee Hargeysa waxaa ka mid ah dadka lagu casumo ka qaybgalkiisa oo aad u sareeya oo daafaha dunida laga keeno oo ay ku jiraan ajaanib maamuus ku leh dhinacyo kala duwan iyo weliba Soomaalida.
sanadkan dadka lagu casumay bandhiga buwaagta ee Hargeysa waxaa ka mid ahayd Dr. Aimo Obama oo ay walaal yihiin madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama oo leh khibrad 30 sano oo dhinaca wax qorista waxayna qortay buwaag tiro badan oo adduunka si weyn looga soo dhaweeyay. Bandhiga buwaagta caalamiga ah ee Garowe Book Fair dhammaan arrimahaas aan soo xusnay ee uu leeyahay bandhiga buwaagta ee Hargeysa ma laha bandhiga buwaagta ee Garowe. waxa uu magac ahaan ama astaan ahaan uu wata heer caalami laakiin kaba muuqato markaan ku cabiro intii sano ee la soo qabanayay. waxaa sanad kasta ka muuqda habacsanaan weyn dhinaca diyaar garowga oo aad u hooseeya marka laga reebo sanadkii ugu horeeyay oo ugu xiiso badnaa marka la cabiro intii la qabanayay bandhigan. ma jiraan qabanqaabiyaal khibrad u leh habka diyaarinta bandhigyada buwaagta heerka caalamiga ah oo ku lug leh bandhiga buwaagta ee Garowe. bandhiga buwaagta caalamiga ee Garowe ma jiraan hay'ado caalami oo u xilsaaran inay bixiyaan kharashka ku baxaya bandhigan sida kan Hargeysa oo kale, sababtoo waxa uu muuqdaa mid aan soo jiidan hay'adaha caalamka ee taageera bandhigyadan oo kale. taas beddelkeeda waxaa shirkadaha maxalliga laga soo ururiyaa lacag yar kuwaas oo aan dabooli karin baahiyaha bandhigan. awoodda dhaqaale ee bandhiga buwaagta ee Garowe ayaa ah mid aad u xadidan, taas oo aan suuro gelin karin inuu yeesho tayadii looga baahnaa. qabanqaabiyaasha Garowe Book Fair gaar ahaan kuwa leh go'aanka ayaan ahayn kuwa ehel u ah shaqadan. marka dib loo eego dhacdooyinkii hore ee bandhiga buwaagta ee Garowe Book Fair ayaan ka tegin wax raad horumar leh, mana jiraan faa'iidooyin dhaxalgal ah oo uu bandhigan Garowe soo kordhiyay muddooyinkii la qabanayay. bandhiga buwaagta ee Garowe Book Fair sanadkan ayaa u muuqda mid aad uga sii hooseeya kuwii hore marka laga eego dhinacyo badan sida qabanqaabada iyo dadka loo xushay inay ka qayb galaan oo aan wax weyn ka duwanayn kuwii sanadihii hore.